in lagu daweeyo badqabka ragga dumarkun baa la daweeyaa waa in raggiina hadda kadib badqabkooga iyagana la daweeyo lagu daweynayo ama qalliinka kelyaha iyo kaadi mareenka iyo inta loo yaqaano iyo qalliinadii kale ee markaasi si guudba waa markii ugu horeysay ee xarun sano kala la furayo computerka ku jirka iyo ticketka dhakhaatiirta lagu arki doono insha Allah in free ay tahay ay ku soo dhawaan doonaan gelin hore iyo gelin dambe ay xarunta magaalada Boorama gaar ahaan xaafadda Cali Balaag waxa laga daafray Asal Medical Center oo xarun caafimaad oo qaban doonta daaweynta xanuunada ku dhaca kaliyaha iyo kaadi mareenka sidoo kale adeegyada aasaasiga ah ee kala duwan waxaana ku diyaara xarunta dhakhaatiir khibrad u leh xanuunada iyo daryeelka caafimaadka waxa xariga si wada jira uga jaray xogayaha gobolka Awdal cilmowdiin dhakhaatiir isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Awdal bulshada xaafadda qaarkood iyo mas'uuliyiin kale bismillah waxaan ku furnaa magaca Ilaahay Allah barakeeyo ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay aasaasayasha xarunta magaciisu waxa weeyaan Asal Medical Center waxaanu ku yaala degmada magaalada Boorama especially xaafadda wuxuu kaga yaala Cali Balaag haddaan hore u socdo furitaan maxay ajandaha ugu weyn aynu u furnay klinigan waxa uu yahay laba shay number 1 waxa weeyaan horta waxay nala jooga Dr. Maxamuud oo ah Dr. Urology ama Neurosurgeon dhakhtarka qalliimada kelyaha iyo maxay kaadi mareenka marka ajandayaasha aan u furnay waxay kamid ahayd maadaama bulshada uu ku cusub yahay speciality-gan iyo wax qabadkani inuu noqdo meel rug oo inta ugu badan uu fadhiisto number 2 waxa iyadna kamid ah xaafadan aynu joogno ee Cali Balaag si guud ma laha meel ama kliniga ama meel dhakhtar oo dadku ay u doontaan inta badan caafimaad laga yaabo meelaha qaar waxa ku yaala farmasiyo niman dhalinyaro ay joogaan inta badan Allah barakeeyo laakiin meel qofku uu tago shaybaad iyo dhakhtarnimo iyo maxay si xaaladiisa loo ogaado ma laha taasi darteed ayaan markaasi halkan aynu u furnay ajandaha saddexaad isaga laftigiisa waxaan rajaynaynaa inaynu sameeyno shaqada aynu qabanayna inay ahaato sometimes waayeel iyo dad waaweyn oo guryaha jooga ee jira inta badan oonan gaadhin xarumaha caafimaadka taa laftigeegu waxaanu ka caawinaynaa maadaama tiimka maxay wax qabadkan gacanta ku haya in waqtiyada qaar aynu u dirno oo ditana ay soo booqdaan ditana wixii xataa ay ka soo qaadi karaan wixii loo baahanayo shaybaadha iyo waxaasi inta markaan ka baxo si guud maxay adeegyada aan fulinayno waxa kamid ah adeegyada maadaama uu dhakhtarku inala joogo adeegyada kaliyaha iyo kaadi mareenka waxyaabaha la tacaluqa iyo chronic disease oo iyagu keenayaba waxan midda labaad waxay noo jooga oo kamid ah hawlgalayaasha maxay klinigan Dr. Maxamed Abdurrahman oo ah dhakhtar master of maxay family medicine Dr. Maxamed Abdurrahman inta ugu badan iyo isagana waa la heli doonaa number 3 waxa kale oo la heli doonaa aniga ayaa inta ana joogi doona marka saddexda dhakhtar ayaa la heli doonaa adeegyada aan qabanayna waxa weeyaan adeegyadaas inta badan urology-ga si guudna maxay general physician-ka ayaa medicine iyo wixii oo dhan loo jooga waxa dhow gobolkeenu ama magaalada Boorama ma laha takhasusaadkan halkan ay soo kordhinayno ma laha waxa weeyaan waa markii horeysay ee takhasuska urology-ga lagu daweynayo ama qalliinka kelyaha iyo kaadi mareenka iyo inta loo yaqaano iyo qalliinadii kale ee markaasi si guudba waa markii ugu horeysay ee xarun sano kala la furayo marka xaruntani waxay u adeegi doontaa oo lagu daweyn doonaa xanuunada ku dhacaya kelyaha oo iyo inta kaadi mareenka la yiraahdo iyada iyo qalliinkoogaba iyada daweyntii iyo qalliinka wada socda marka waxa kale oo la socda inta badan xarumaha kale ee waa Muqdisho dhulka way jiraan laakiin waxa weeyaan in lagu daweeyo badqabka ragga dumarkun baa la daweeyaa waa in raggiina hadda kadib badqabkooga iyagana la daweeyo marka xarun urology-ga soo hoos galaya marka xaruntan adeega dheeraadka ay adeegi doontaa waxa weeyaan waa urology-ga ka loo yaqaan urology-ga si guudna sida kale waxa jooga family physician iyaguna ka shaqeyn doona xanuunada kale iyo wixii kale ee markaasi ku dhaca jirka la xiriirin urology-ga marka takhasus weeyaan xaruntu waa xarun takhasusaad leh xarun general lagu daweynayo way noqonaysaa sideedaba dhakhaatiirtu waa labo midun weeyaan qof bulshada ka shaqeystay qof bulshada u adeego u shaqeeya waxaan rajeynaynaa ballan qaadinaa insha Allah taala bulshada u adeegno toddobaadka ka biloobmay Britole oo maalin Salaaso ah ilaa Salaasada soo socota insha Allah taala waxaan ugu ballan qaadinaa bulshada
dhammaan adeegyada waxa weeyaan xarunta gaar ahaan adeega computerka ku jirka iyo ticketka dhakhaatiirta lagu arki doono insha Allah in free ay tahay ay ku soo dhawaan doonaan gelin hore iyo gelin dambaba ay xaruntu ay diyaar ay ugu tahay insha Allah taala intaa waan balan qaadinaa. intaa kadib mas'uuliyiintii kala duwanaa ee kala soo qayb galay xarika jarka xarunta ayaa hadalka iska daba qaatay isla markaana bulshada ku soo dhaweeyay xaruntani. run ahaantii waa qayb inagu cusub ka gobol ahaan waana loo baahan yahay waa meelaha ugu xanuun badan kaliyaha iyo kaadimareenkuba waa meelaha mar kastaba loo baahan yahay laga maarmi sidaad ogtihiin dhakhaatiirtu waa saaxiibka qofka weyn iyo mas'uuliyad weyn baad ummadda u qabanaysaan ilaahay ha idinku asturo waxa aad u furateenna ilaahay ha idin barakeeyo bulshadana ilaahay subxaanahu wa tacaala saaxiib ha idinka dhigo. xaruntan waa xarun loo baahnaa oo takhasusad gaar ah leh xanuunada kaliyaha iyo kaadimareenka iyo qaliinkooga ku takhaluqa waan bogaadinaynaa xarunta ay fureen waxaan rajaynaynaa bulshada gobolka Awdal iyo dhammaan Soomaaliland inay ka faa'iideystaan bulshaduna waxa ay naga filanayso insha Allah inaad ku sifaysnaataan insha Allah adeegii loo baahnaana laga helo waxaan leenahay insha Allah taala dhinaca kaliyaha iyo kaadimareenka waa hawlo ku cusub doctorkana saa rajaynayno waa dalka dibadiisa ayuu takhasus ka soo qaatay waa takhasus gooni uu leeyahay takhasuska gooni uu leeyahayna inuu insha Allah taala bulshadiisa uga faa'iideyn doono bulshada xaafaduna si gooniya iyo magaalada iyo dalkuba insha Allah taala ka faa'iideysan doontaan rajaynayna insha Allah waan hambalyeynaa marka koowaad mas'uuliyiinta runtii waa dad ama saddex dhakhtar ee ka hawlgalaya xaruntan Dr. Maxamuud, Dr. Shucayb iyo Dr. Maxamed iyo teamka inta kale la shaqeynaysa wadadan ku ogahay karti iyo muxuu ahaa howlqabad sidoo kalena dad u dhibriya oo u naxariista bukaanada iyagana waxaan kula talin lahaa inay sifada ay hore lahaayeen in waxay sii wanaajiyaan mooyaan inaan waxba ka reebin bukaan kale ay u naxariistaan xaafadana marka la furo xarun caafimaad waxaa la filayaa in isbedel uu ka dhaco daryeelka caafimaadka ee ugu yaraan daan meesha laga furay maharada marka la soo kordhiyo bulshadiina adeeg bay u soo kordhinaysaa waxa weey dawladdiina cashuur iyo dhaqaale ayaa soo galaya dhakhaatiirta halkan furanaya waxaan kula talinaynaa insha Allah taala in adeeg hufan oo wanaagsan bulshada ay u fuliyaan ay u dhibriyaan sidii horeba loogula taliyay waanu ducaynaynaa in Ilaahay subhanahu wa taala maharada iyo adeega bulshada ay u soo kordhiyeen uu barakeeyo aynu u baahannahay inaynu u helno xarun heegan ugu jirta 24 hours qofkii kaliya xanuunayeen qofkii xaaladda caafimaad ee halkan lagu xalinayo u baahnaa dadweynaha xaafadan iyo dadweynaha magaaladaba waxa aan si guud ugu dhiirigelinayaa ama fariin uga diray halkan inay ka faa'iideystaan dhakhaatiirtan heeganka ugu jira dhakhaatiirta halkan joogtana sidii fariintii xaggan laga wada sheegay waa la qabaayo inta badan ninka wax haystay ee kaliya ka cabanaya meel fog buu tagaa ninkaan waxba haysan xaaladiisu ay dhaxaas kaga jirto sax dhexe ama maalin ama habeen raarba u baahan baahidan ayaa ku iman doona isaga inaad hoos eegtaan at least hataa inta la idin baranayo hataa intaad kor u soo kacaysaan inaad sadaqad ka bixisaan warbaahinta Cishqi TV Boorama.